sallallahu alayhi wasallam. Dhammaantood waan salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Maanta waxaan isku dayi doonaa inaan sameyno sidan hore waa idinka balan qaaday widget adiga kuu gaara oo sida kan oo kale ah, sida kan saacada aan sameeyo kale ah, oo markaa halkaa kuu soo dhigmaya widgetkaas oo kale sidii loo sameyn lahaa, oo inoo kale markaad ku dhufatana ayaan ku dhex geynaya aapkii. Markaa widgetkaas oo kale sida u sameynaysa, markaa waxaad taabanaysaa linkiga videoga hoostiisa yaal, kadibna waxaa idin geynaya halkan download baa odhanaysaa. Waa faylal aan u baahanahay markaa oo aynaan ka maarmayn, kadibna download file bas uu soo download gareeyay, kadibna waa kasoo baxaysaa fayliskaaga tagaysaa halkii uu kusoo download gareeyay oo ah downloadska ayaad taabanaysaa. downloads dhiida ay capital tahay, kadibna ka dhex baaraysaa. Markaa waa kan faylkii kusoo download gareysanay, waa markaa si aad u extract gareysid extracted folderkana magaca u bixi, kadibna oo ka folderkaas oo idin soo saaraya saddexdaa fayl ba markaa inoogu jira. Markaa saddexdaa fayl bartaas ay noogu ogaanaysiin oo halkaa ay kugu jiraan ayaan hadhow talo u baahan doonaa. Markaa iska joogsaad aynu gelinaa, iska joogsaad geli aapkaaga samaysan widgetka ahaa, kadibna magacood bixinaysaa icon halkaas saaraysaa. Markaa info kale waxaa bixinaa my widget, kadibna aapkii my widget oo samaystay. Waxa koowaad qabanaysaa ha noqdo inaad halkaa kusoo darto sawir. Sawirkaas waa sawir preview la yiraahdo, oo qof markuu widgetkan kusoo dhex darsanay mobilkiisa warkay siduu eegyahay. Markaa info kale halkaasaan ka dhigtay, kadibna waxaad tiraahdaa waxaa laazim ah iyaduna oo aanad ka tegi inaad u bixisid sawirka preview ayaad bixinaysaa. kadibna preview markaa bixiso waa kasoo bixi. halkan ayaa haddana imanaysaa custom view oo taabanaysaa add bay kadibna odhanaysaa magacaad u bixinaysaa waa inuu noqdaa widget, iyadoo halkaa magaca kama bedeli karta, haddii kale error baa kaga gelaya applicationka. Markaa halkaana markaa widget u bixiso waxaad sameynaysaa wuxuu noqonayaa in haddaba widgetkii qofku uu arki lahaa uu telefoonka kusoo dhex darsan lahaa aad halka soo dhigto, kaas oo aad ka dhigan kartid waxaad doontid. Iminkaan u sor ayaan ka dhiganayaa, waxaan ka dhiganayaa sawirkii markii dhaweyd. Markaa ayaa halkaa waa 200, halkan kalena saas oo kale 100. markaas sawirkaas oo kale ayaan meesha soo dhiganaa. hadda doontidna halkan ayaad usii weyneynaysaa oo waxaad uga dhigi 200, kadibna paddingka 0 ka dhigi si sawirka si fiican looga arko. Markaas sawirka ayaa imika widgetkeena laga dhex arkayaa, sawirka halkaa yaal. Markaa waad kasoo noqon viewgeega waa niman saddexdii fayl baa imika loo baahayay, kadibna jaafada taabo halkaa ayaad ku dhufanaysaa. kadibna waxaan tegaynaa halkii aan kusoo download gareynay faylskii download widget folder waad arkaysiin baan umaleynaya. halkaa isaga ku dul dhufo, kusii dul dhufo home widget.java waa inaad faylka heshaa, waad kusoo daraysaa wax kale ma qabanaysid oo tanaad kusoo baxaysaa. haddana resourceskaasi tegaysaa,
sidoo kale waxaan yar xasuusin lahaa aqoon haysan iska joor baro ma samayn karo waxaan kadibna faylka resourceska aad ka dhex samaysay aad tiri waxaa bixinaysaa xml iyadana magaca ka bedeli kartid kadibna sidii kii hore kale ayaad kusoo daraysaa laakiin isla maaha isla faylkii jaafadaha maaha waa fayl kale ay ku qoran tahay xml markaa waa kan faylkeeni widget folder home widget.xml kaas ayaad kusoo daraysaa halkana isna waxba ka bedeli maysid sidoo kalena waxaad xaggan kusoo darsanaysaa Android manifestaha halkaas taabanaysaa kadibna halkaa ayaad wax ku daraysaa balse kan xaggan kama soo dhex dari karno wuxuu baahan wax lagu koobiyeeyo markaa halkii waad kusoo noqon faylkaagii manifestaha taaban intaa kaa doonto aabiska kugu jira kaa doonto ku fur muhiimadda ayaa waxay tahay in aad soo koobiyeysid inta qoraalka kuu soo saaray tagas koobi kadibna waxaa ku koobiyeen iska joorta barti aan soo dhex galnay oo ahayd manifesta aniga kusoo celiyo Android manifesta app components kadibna bast ku leh save intaa markaad qabato way kaagan tahay run badanoosa yara sugana markaa ilaa uu isoo install garanayo halkaa linear ay ku qoran tahay ayuu khalad yar ka jiraa markaa khaladkaas waxaa weji custom viewga tegaysaa halkan soorka aad soo dhigtay taabanta idgiisa ayaa soo koobiyeysanaysaa kolba markaa halkaa waxaad dhigto idgiisa waa inaad soo koobiyeysaa aad kadibna faylkeeni jaafaha aad tagtaa kadibna xaggaa linear 3 ay ku qoran tahay iminka buluugan aan saaray ee jaafada qoraalkeeda ka dhex mid ah ayaad ku baasti garanaysaa halkaas markaa laga baasti garanaya halkaas taabanaysaa kadibna waxaa odhanaysaa save markaa halkaa waxaad dhigta idgiisa oo soo koobiyey ku baasti gare jaafada halkii ereydan idin sheegay iminka si bila hadala insha allah waynoo shaqeynaya appka waxaa soo install gareeyay kadibna dhan ayaynu odhanaa ama openba kadoontid kadibna appka inta hore waxaa maynaan soo dhigin laakiinse waa soo dhigi kartaa markaa saan idiin tuso imika in widgetkii uu soo galay telefoonka oo kan my widget baad raadini oo kaa arkaysin sawirkii previewga anoo kaa soo saaran oo taabanaysaa aad baa odhanaysaa arkaysin sawirkan meesha soo dhignay waa kan sidoo kale widgetka waad yareyn kartaa waad weyneyn kartaa markaa cashirkeena maanta waa intaa widgetkaad rabto samaysan kartaa sidoo kale marka lagu dhufto wuxuu ku dhex geynayaa appka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu